maamulka gobolka Togdheer kan degmada Burco ilaa shan isuduwo oo kamid ah isuduwayaasha gobolka Togdheer iyo waliba dhammaan shaqaalaha gobolka Togdheer ee hay'adda caalamiga ee Media ayaa maanta shir jiraayid ku qabteen Hotel City Place magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco waxay si cad u beeniyeen war uu daabacay wargeyska Haatuf ee madaxa bannaan ee ka soo baxa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kaasoo bagiisii 17 bishan ee ku guda jirnay ku daabacay in hay'adda caalamiga ee Media ee shaqaalaha ay ka qaadanayso dalkan Soomaaliland inay ku xidho shuruudo dhowr ah oo ay ugu horeyso inuu qofku haysto diinta Kiristaanka gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo horeyn shirkaasi jiraayid ka hadlay ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay wararka uu sheegay in aanay sariir raatoon lahayn oo daabacay wargeyska Haatuf gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi waxa kale uu cadeeyay in shaqaalaha hay'adda caalamiga ee Media ay yihiin dad muwaadiniin ah oo ku dhashay diinta Islaamka isla markaasna ay hay'adda Media muddadii ay shaqaynaysay in aanay ku arag waxyaalo ka hor imanaya dhaqanka Islaamka iyo waliba diinteena suuban Media lagu aflagaadeeyay gobolka lagu aflagaadeeyay shacbiga lagu aflagaadeeyay meel ka dhaca weyn runtii meel ka dhac weyn weeye oo ay meel ka dhacday Haatuf oo runtii wax aad iyo aad loola yaaba inagoo maanta joogna bishii Ramadaan inagoo joogna maalmihii khayrka badnaa ee Ilaahay inoogu cadeeyay bisha Ramadaan inaynu aflagaado noocaas ku tilmaano dad Islaam ah oo Ilaahay waa fiican oo sooman in la yiraahdo Kristaan baa lagu qaatay waa dambi aad oo jariimad aad u weyn degmada Burco Master Maxamuud Axmed Xasan Dagalaab oo isna halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday wargeyska Haatuf warkan uu ku qoray habdhaqanka hay'adda Media wuxuuna si cad u weeraray degmada Burco wargeyska Haatuf oo isagoo wargeys madax bannaan oo ka soo baxa dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo degmada Burco ka codsaday madaxda wargeyska Haatuf sida ugu dhaqsaha badan leh ee bulshada gobolka Togdheer iyo waliba shaqaalaha hay'adda caalamiga ee Media ay ka raali galiyaan magaaladana waa lagu gafay gobolka waa lagu gafay degmada waa lagu gafay dadkana waa lagu gafay nimankii tabaruca wiimina waa lagu gafay waxaan leenahay qoladii waxa samaysaa ka noqoto ee jirrada Haatuf qolada meesha joogtay shaqaalaha xaal anaga siinayna isuduwaha wasaaradda caafimaadka diinta iyo waqaafta shaqada iyo arrimaha bulshada iyo waliba taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ka maqraati kacay inaanay hay'adda caalamiga ee Media inaanay shaqaalaha ku qaadan wax ku lug leh diinta Kiristaanka isla markaasna waxay cambaareeyeen madaxda wargeyska Haatuf oo isagoo wargeys ka soo baxa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa sidoo kale shaqaalaha u dhashay Soomaaliland ee ka shaqeeya hay'adda Media ayaa iyaguna ku sifeeyay wargeyska Haatuf mid ku xadgudbay xuquuqdii iyo muwaadinimadii kana dhigay kuwa ku ridoobay diinta Islaamka 17 bishan ayaa waxa uu wargeyska Haatuf ku eedeeyay hay'adda caalamiga ee Media oo fadhigeedu yahay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ee shaqaalaha xilligan ay qaadanayso ay ku xidhaynay yihiin qof haysta diinta Kiristaanka warkaas uu daabacay wargeyska Haatuf oo isagoo wargeys madax bannaan oo ka soo baxa Hargeysa ayaa waxa uu sifan karaa mid guud ahaanba ay ka beedideen mas'uuliyiinta reer gobol iyo reer degmo iyo waliba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British shabakada caalamiga ee Togdheer Burco